xasan sheekh waxaa loo arkaa ninka ugu dowlad yaqaansan madaxdii dalka soo martay burburkii kadib. haddii la soo qaato saddexdii dowladood ee ugu dambaysay wuxuu xasan sheekh haystaa rikoor ka wanaagsan madaxda kale. hay-adaha dawliga ah ee uu xasan dib u soo nooleeyey, safaaradaha uu dib u furay, sharciga uu u sameeyey shaqaalaha rayidka ah, hannaanka maaliyadeed ee uu abuuray, miisaaniyadda uu dalka u sameeyey, dhismaha maamul goboleedyada, ururada caalamiga ah ee uu Soomaaliya dib ugu celiyey, iyo qaynuunka uu u jeexay siyaasadda arrimaha dibadda ayaa xasan sheekh uga markhaati furtay inuu haysto wax aanay haysan madaxdii kale ee la tijaabiyey. dowladdii ka horraysay waa samayn weysay arrimahan, middii ka dambaysana wax badan kuma biirin. arrintan waxaa loo sababeeyey inuu leeyahay faham dawli ah oo ku xoog badan madaxdii kale ee dalka soo martay burburkii kadib. marxaladda ay maanta Soomaaliya joogto inuu qofku leeyahay faham dawli ah oo xooggan waxay kab u tahay dowladnimada.